munaasabaddan oo loogu dabaaldegayay boqol jirka magaalada Boorama oo ahayd munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ayaa ahayd mid nooceedu uu ku cusub yahay guud ahaanba dhulka ay Soomaalidu degto waxaana munaasabadani ka soo qayb galay ergooyin kala duwan oo ka kala socday gobolada iyo daafaha dunida safiirka Jabuuti u fadhiya Somaliland maamulka gobolka Awdalka degmada Boorama mudan iyo marti sharaf kale oo munaasabadda lagu soo marti qaaday barbilowba waxaa munaasabadda daafuray maayirka magaalada Boorama mudane Saleebaan Xasan Xadi waxaana uu ka waramay aasaaska boqol guurada magaalada Boorama iyo ahmiyadda ay u leedahay bulshada maanta aniga oo ah magacii degmada Boorama ku hadlaya waxa sharaf ii ah inaan ku soo beegay 100 sano inuu u buuxsamay muddadii loo aqoonsaday magaalada Boorama degmo ahaan ama deegaan ahaan inay tahay magaalo degmo u qalanta muddadii degmo ahaan lagu dhawaaqay waanu garanaynaa laakiin muddadii lagu dhawaaqay ma waa markii loo aqoonsaday magaalo ahaan loo aqoonsaday weyn ma runtii waa hawl culus gudoomiyaha gudida qabanqaabada mudane Cabdilaahi Xuseen Caateeye iyo safiirka Jabuuti u fadhiya Somaliland mudane Xuseen Cumar Kawaaliye oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxay ka warameen barnaamijka kulay hawlo oo la qabto ujeedooyin baa loo qabtaa la iskama qabto ujeedooyinka ugu talagalay waxay ahayd in jiilka aniga iyo wixii iga dambeeya taariikh loo reebo waayo 100 sano taariikhdooda ku duugan sidoo kale inay noqoto Boorama magaaladii u horeysay ee xusta maalintii degmada loo aasaasay boqol guuradeeda hormuudna u noqono degmooyin kale ee lagu dayaan inta labaad anigoo ku hadlay magaca jamhuuriyadda Jabuuti waxaan xaggani nigashida salaan madaxweynaha marwada koobaad iyo xukuumadda Jabuuti dhammaantoodba aniga oo maanta boqol jirkii maalintii ugu horeysay ee laga bilaabay degmo loo aqoonsaday ilaahay ugu simay waxaan leeyahay waa magaalo qaaliya wixii intaasi ka dambeeyay waxa hadallada iska daba qaatay culimaawidiin hoggaanka dhaqanka mas'uuliyiin iyo aqoon-yahano waxayna si qoto dheer uga warameen taariikhda magaalada Boorama Aisha ayaa wax la weydiiyay markaas ay tiri qof xogogaal wax weydiisay muddadii maayarka aan ka ahaa baan taariikhda Boorama isku day jiray aan ururiyo waxaan la kulmay odayaashii waaweynaa ee muddakarka ahaa ee magaalada Boorama joogayay cid walba wax baan ka qoray kuwaasi oo kolkaa nooga sheekeynayay sidii wax walba ay ku aasaasmeen maanta sharafay noo tahay madax dhaqameedka nahay inaan maanta ka soo qayb galno oo muddo badan aan suganay sanad guuradii boqolaad ee ka soo wareegtay aasaaskii magaalada Boorama in badan baan suganay 3 bilood ka hor baan shir halkan ku qabanay qabanqaabadeeda ku jirnay maanta waxaa halkan inooga cad ama horeba u caddeed in reer Awdal ama Boorame ay yihiin ilbaxa reer Somaliland taasi waa marag badoon weli kamay dhaceen iska daa magaalo ama tuulo la yiraahdo sanad guura loo sameeyay taariikhda ku soo wareegtay dad badan ama ummado badan oo jira ayaan taariikhdooda lahayn ama laga sheekeenin marka taasi waxay ina tusisaa ilbaxnimada reer Awdal dadkii magaalada maanta boqol guuradii aan u dabaaldegayno dadkii dhisay wax jooga ma jirto way tageen inaguna waan ka daba tagi doonaa waxaan leeyahay faataxada loo maraalaha u naxariisto waalidiinteena halka sharafay ii tahay maanta in halka soo istaago oo ka soo qayb galo xuska boqol guurada jamhuuriyadda xuska boqol guurada magaalada Boorama markii la degay muddo haatan laga joogo 100 sanadood waxaan ahay dadkii Boorama anigoo yar baan ka tagay reer Boorama ahay magaalada Booramana aad iyo aad ee qaali ugu tahay Somaliland waxay ku fadhidaa ay ku jirtay qurux ku leedahay waa ilbaxnimada aan sheegay Boorame sheekh beledku arrin aad u qaaliya buu hoosta ka xariiqay Somaliland may fadhiisateen oo nabadeeda waxay ka bilaabantay Boorame Cabdirasaaq Cumar
micadowliyo telefishinka codka bariga Afrika Boorama.